Bismillah. Maanta cashirkan wuxuu ku socdaa dadka markay dhakhtar u tagaan aanan garanayn sida xanuunkooda u sheegtaan. Dadkaasi waxay u kala qaybsamaan badanaa laba koox. Qolo markay dhakhtar u yimaadaan cudurro sheega sida inay farmashi daawo ka gadanayaan oo kale, sida inuu qofku dhaho doctor waxa ay haye gas, infection iyo allergy inay iga daaweyso ayaan rabaa. Dadkan waxay u badan yihiin inay hore u soo qaateen daawooyin oo u shaqayn waayeen, sidaasna dhakhtarka u yimaadeen. Qolada labaad waa qolo aan ahmiyad u arkinba inay sheegaan sida loo hayo, oo wax astaan ah ma sheegtaan amaba way ka qariyaan dhakhtarka iyagoo u maleynayo inay ku qishayaan haddii ay warbixin buuxda ku siiyaan. Marka waxay rabaan inaad adiga soo saartid waxa hayo, oo warka dhan waxay ku soo koobaan inay dhahaan oo kale meel ii fiyow ma lahan, waa la igu wada dhan yahay, madaxa ilaa ciribta ayaa laga hayaa, doctor si fiican ii baar wax iga qaldan ma aqaan iyo wax la mid ah. Dadka labadaas siyaabood u sheegta badanaa waa la dhinac maraa garashada cudurkooda, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aan lagu dirin baaritaanka ku habboona xanuunkaaga oo kuwo kale lagu diro, ama inuusan dhakhtarka isku taxallujin inuu warka kaa soo saaro oo waqti ku siiyo. Ogow, kullama aad faahfaahisid qaabka lagu hayo, xanuunka goorkuu bilowday, siday astaamaha u kala horeeyeen, iyo waxyaabaha xanuunka kugu siyaadiyo ama kaa khafiifiyo, iyo haddii aad daawo hore u soo qaadatay, intaba waxay dhakhtarka ku caawisaa in xanuunkaaga la abbaaro iyadoo aan lagu diraynin baaritaanno aad ka maarmi kartid. Marka fadlan isku day in dhakhtarka si fiican uga warbixisid xanuunkaaga, sababtoo ah dhakhtarka uurku baalla ma ahan. Xanuunada qaarna way isku ekaan karaan. 70% waxaa xanuunada lagu kala soocaa waraysi iyo weysiteyn. 30 soo harayna waa baaritaanka oo loo adeegsado in lagu xaqiijiyo ama lagu kala reebo xanuunada dhakhtarka uu kaaga shakisan yahay. Fadlan faafi fariintan, waana mahadsantahay.